kulanti wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu dambeeyay siyaasadda kuwooda ugu door karoon. Midowga Afrika oo ergey cusub u magacaabay Soomaaliya. Dowladaha caalamka oo si kulul u cambaareeyay weerarkii iyo xasuuqii kooxda Al-Shabaab ay ka geysteen gobolka Hiiraan kuna baaqay dagaal ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. Dagaal u dhaxeeya kooxda macawisleyda lagu magacaabo iyo kooxda Al-Shabaab oo dib uga qarxay gobolka Hiiraan. Qodobada kale ee aad ku maqli doontaan warka inta uu soconayo waxaa qayb ka ah maxaa ka jira in dowladda Turkiga ay ciidamo dheeraad ah u soo dirayso Soomaaliya si loo soo afjaro dagaalka dowladda Soomaaliya ay kula jirto kooxda Al-Shabaab. Qodobadaas iyo qodobo kale oo aan idiin qarinayo ayaa warkeena qayb ka ah. Warka waxaa soo saaray Maxamed Cabdullaahi Biiki anigoo qanciya ayaa halkan idin la socodsiinaya. Aynu ku bilownay Midowga Afrika oo ergey cusub u magacaabo Soomaaliya. Midowga Afrika ayaa ergeygiisa cusub ee Soomaaliya u magacaabay Maxamed El Amiin Suuf kaasi oo u dhashay dalka Comoros. Tan ayaa ku soo aadaysa xilli aan xasuusano in ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble xilligii xafiiskiisa markaasi uu majaraha u hayay uu ka eriyay ambaasadorka xilligan jagada laga xayuubiyay ee Madeira kaasoo horey u ahaa ergeyga Afrika u fadhiya Soomaaliya. Dagaal u dhaxeeya kooxda Al-Shabaab iyo koox lagu magacaabo macawisleyda oo dib uga qarxay gobolka Hiiraan. Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabelle ayaa ku soo warramaya dagaal culus oo u dhaxeeya kooxda Al-Shabaab iyo maleeshiyaadka markaasi lagu magacaabo macawisleyda ayaa ka qarxay maanta qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan. Maleeshiyaadka macawisleyda oo ka ambabaxay degmada Jallaqsi ayaa wararku ay sheegayaan in ay dagaal ku qaadeen saaka aroornimadii fariisin ciidan oo ay kooxda Al-Shabaab ku lahaayeen qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan. Dagaalkan saaka dhacay ayaa waxaa la soo warinayaa inuu sababay dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray labada dhinac ee halkaasi ku dagaalamay. Dagaalkan ayaa ku soo aadayay xilli shalayto ay kooxda Al-Shabaab xasuuq aad u ba'an ay u geysteen shacab deegaan ahaan u dhow degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. weli waxaad la socotaan warkaya maxaa ka jira in dowladda Turkiga iyo ciidamo dheeraad ah markaasi u soo diraysa Soomaaliya si loo soo afjaro dagaalka dowladda Soomaaliya kula jirto kooxda Al-Shabaab. Turkiga oo ah dowlad xiriir wanaagsan kala dhaxaysa Soomaaliya ayaa haatan ballan qaaday in Soomaaliya uu ku garab istaagi doono hiilyaho la dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyadoo sheegtay dowladda Turkiga inay markaasi ciidamo fara badan u soo diri doonto gudaha dalka Soomaaliya. Turkiga oo ah mid ka mid ah dowladaha ugu cilaaqaadka fiican Soomaaliya ayaana ballanqaadkan sameeyay xilli shalayto. Turkiga ballanqaadka uu sameeyay ayaa ku soo aadaya xilli dowlado fara badan oo Afrika ah Soomaaliya ay ka joogaan askar markaasi ay doonayaan in markaasi looga dagaalamo kooxda Al-Shabaab. Guud ahaan waxaa intaas nooga eg warkeenimo. Warka waxaa soo saaray Maxamed Cabdullaahi Biiki anigoo qanciya ayaa halkan idin kala socodsiinayay. Intaan warcinkan midkan lamid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas nabadgelyo.